halkan waa TV-ga Shabeelle daawadayaal ku soo dhawaada war degdeg ah oo goordhow naga soo gaaray agagaarka garoonka diyaaradaha iyo isgooska kiiloomitir 4 inta u dhaxaysa hoteelka ku yaala ee la yiraahdo Afriik oo uu ka dhacay qarax dablay hubaysan ay haatan ka dhex dagaalamayaan iminka waxaa halkan igula sugan oo ka yimid goobtii waxyeeladu ay ka dhacday wariyaha Shabeelle Sakariye Axmed Muuse Sakariye soo dhawow waxaad daawadayaasha si toos uga warantaa wixii indhahaga aad ku aragtay sida wax uga jiraan hotel Afriik aad baad u mahadsantahay maxamed cali goordhow waxaa qarax xoog leh uu ka dhacay agagarka ama afaafka hore ee hotel Afriik halkaasi oo imika ay ka dagaalamayaan kooxo hubeysan oo la sheegay in ay gudaha u galeen dagaal culus oo foolka fool ah ayaa ka soconaya halka loo yaqaano hotel Afriik oo ku yaala inta u dhaxaysa isgooska kiiloomitir 4 iyo waliba garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan militariga Soomaaliya iyo kuwa sida gaarka u tababaran ayaa waxa ay ku qulqulayeen goobta ay ku jiraan xubnaha hubeysan hotel Afriik dad dhaawac ah ayaan indhaheenu ay qabanayeen kuwaasi oo lagu qaadaya gaadiidka gudaha ah ee ambulance sidoo kale waxa goobta indhaheenu ay qabanayeen qiiq aad u fara badan oo goobta ka kacay iyadoo ay xusid mudan tahay qaraxii koowaad ee ka dhacay halkaasi marka laga tago in uu jiro qarax kale oo ka dhacay goobta haatan dagaalku uu ka soconayo lama xadidi karo qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi waxa inta badan dhacda mararka qaar hoteelada magaalada Muqdisho qaarkood in ay gudaha u galaan xubno ka tirsan xarakada al-shabaab isla markaana ay ka dhex dagaalamaan way Sakariye marka laga tago in rag hubeysan ay haatan ka dhex dagaalamayaan gudaha hoteelka haddii aan dib ugu laabano qaraxa ma qof soo midaamiyay ayuu ahaa magaari wal xaqar laga soo buuxiyay sidee wax uga dhaceen qaraxa noocu ahaa bal daawadayaasha uga waran ilo ku dhow goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa waxa ay noo sheegeen in gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyay lagu dhiftay ilinka hore ee hotel Afriik halka warar kalena ay sheegayaan in qof asagu soo midaamiyay uu isqarxiyay kadibna ragga hubeysan sidaasi goobta ay ku galeen ilaa haatan macada sida qaraxa uu uga dhacay aagaasi balse qaraxa markuu dhacay kadib waxa gudaha u galay hoteelka kooxo hubeysan oo ilaa haatan si xoog leh kaga dhex dagaalamaya gudaha hoteelka oo run ahaantii ay degan yihiin dad aad u fara badan kuwaasi oo isugu jira Soomaali ka timid dalka dibadiisa iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale ama siyaasiyiin halkaasi degan waayahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa wariyaha Shabeelle Sakariye Axmed Muuse oo goordhow ka yimid halka qarxu si gaar ah uga dhacay hotel Afriik oo uu sheegay inay haatan ka dhex dagaalamayaan dablay hubeysan wararkii ugu dambeeyay aan helin waxay sheegayeen in gudaha hoteelka ay ku jiraan saraakiil ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya oo xilliga halka ku sugnaa haatan iska caabin ay sameynayaan askartii hogaaminay ama askartii ilaalinaysay saraakiisha halkaasi ku sugan warar kale oo aanu helno waxay sheegayaan in haatan howlgalka halka ka soconay ay ku biireen ciidanka sida gaarka u tababaran ee Haramcad oo goordhow halkaasi gaaray iyagoo doonay inay soo afjaraan weerarka ka soconay gudaha hotel Afriik ee Muqdisho wixii daawadayaal ku soo kordho wararkaas warar kale soo aadan ayaad ku daawan doontaan Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier